السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن كهالكم فردية يا ومدن خيارتيدي يا مسكحديدي مدحوينه كحجينكو ugu horeeyo waxaan ku salaamayaa nin walba darajadiisa salaanta islaamkana waa idinku salaamaya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waa u mahadnaqaynaa dhammaan mudanka waqtiga soo bixiyey meelaha aadka iyo aadka u fog ka soo safray ee hawshan u yimi waxay sheegaysaa sida arrinta halka taala loo danaynayo waxay sheegaysaa arrintani inaanay arrin ceelaf weyn ahayn laakiin ay tahay arrin qaranka Somaliland khusaysa waa wax aad iyo aad loogu farxo weeye waa idin habalyeynaya dhammaantiin waxaan idin xusuusinayaa ardayada ehelkaan u garnaqaynay yaa anigii wuxuu yidhi nin raggana waa garanaya nacasna loo sheegi maayo arrintaas waxaa madaxweynaha dhigay wasiirada dhigay Somaliland oo dhan wixii kalena dhagtay ku hayaan telefoonka waxana waa kuwa halka yimi arrinta halka taalba boog kali ku taalo weeye oo meel faran xigta ku taalo oo kali ku taalo boog raagtay weeye waa boog ay u muuqatay in maanta la isku dayo boogta in gunta xididada loo saaro waa boog nin kasta oo maanta xildhibaan oo waxgaradi uu dareemay dhibka ay waddanka ku hayso iska daa kuwii ku jiray ee ayaga dul fadhiday waxaan ka rajaynayaa annaga nuxurkii kelmadaha yagii wixii ilaahay baa qofka inuu daacadnimo uun ku shaqeeyo ayaa ilaahay faray aqoontiisu waxay dhaafiso markuu dadaalo ilaahay u qaban maayo laakiin markaanu dadaalay wixii ay nala noqotay oo nuxurkii xafladda ama meesha la isugu yimi waa soo gudbinaynaa waxaan rajaynayaa in ehelkii aanu u garnaqaynina ay si wacan u qaadan doonaan laba arrinna waxaan rajaynayaa inay labaduba meesha ka bixi doonaan laba ciladooda waaweyn baa loo tiriyey inay halka nabadeedu hirgeli weydo ciladu waxa weeye wada waxaana iska raalle araday baano waxaan idinku xamanaa nimanku magtaan ay siinin xoolahan ay bixineen oo baqaylino diragana hadaan la sawirsiin oo aanu xoolaha kala qaadan oo ninkii kala samri maayo inta waxan Allah naga dhaafaaday aan meel taraasiinay inta kale waxaan oran jiray waxa ka maqan gacantii wax fulin lahayd adduunyada wax waliba fulin bay u baahan yihiin iyo ficil cidii fulin lahayd wixii socon waayay baa meesha ka maqan labada ciladood baa jiray aan oran jiray waxay u agtahay maanta labadiiba in Ilaahay soo ururiyay go'aankana waa qaadan doonaan waragoba oo ku ceebo maayaan ku horeba kuma ceebo jirin hadhow meeshay doonaan ka dusaan laakiin de maanta hadhowna waanay dusi karay laana ummaduba uu soo idinkaydii soo diyaar garowday bar hadii la idin soo diyaar garoobay oo la isla gartay u baahan tahay meeshaasi in xaaladeeda la dajiyo oo wax walba loo huro de maanta hadii la idin daba galo baxsan maysaan waa aragtaa waxa ciidan la soo dajinayay iyo waxa tuban iyo madaxda joogta marka ma muuqato meel ka baxaysa hadii Ilaahay ka dhigo waa aad iyo aad baan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa annagana inuu Ilaahay aanu dambi naga raacin
إذن كلا وحي ليدو كحكم الله إذن فضيو نبدي أينو دون إن إنتاسي سقط تمية أينو دمانتي برهاديننا إن الله سبحانه وتعالى سلك إنو قطميو أو إنو تامي يلا بينو الله ويدي سرنا مركا إنتاسام كسوق قبينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.